runtii maanta waa fursad aad iyo aad u wanaagsan aan nafteena iyo dadka Soomaaliyeed iyo dadka jecel dadka Soomaaliyeed baan ugu hambalyeynayno guusha la gaaray. waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo anoo ku hadlayo magaca midowga murashaxiinta ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dawlad goboleedyada dadaalkii ballaaray ay ka geysteen in la soo gabagabeeyo wada hadalka ku aadan doorashooyinka. sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha inuu ra'iisul wasaaraha u ogolaaday inuu shaqadan hogaamiyo asaguna waa ku mahadsan yahay. intaas markii aan ka gudbo geedi socodka dawlad dhismadu horteenana waa jiray haddana waa socdaa horena waa u jiri doonaa insha Allah tabaaraka wa tacaala. marka waxa wax weyn ah si kastoo loo kala aragti duwanaa iyo khilaafku meel kasta oo gaaray maanta halkaan inaan ku heshiinay ama madaxdii wada hadalka ku jirtay ay heshiis ka gaareen marka anoo ku hadlayo magaca madowga murashaxiinta waa soo dhaweynaynaa. sida walaalkay madaxweyne xasan oo sheegay annaga mar walba talo iyo soo dhaweyn ayuu ahaa doorkeenu. ujeedada ugu weyn waxay ahayd dalkan inay ka dhacdo doorasho xura oo xalaal ah oo natiijadeeda la wada ixtiraamo. waa ognahay Soomaaliya waqti adag ay soo martay intii murankaanu socday waxaa jira cabsi fara badan walwal fara badan oo dadka mas'uuliyiinta iyo shacabka iyo dadka jecel Soomaalidaba ay qabeen laakiin falillaahi alxamdu waxaan aaminsanahay maanta inuu soo gabagaboobay. taas waa taariikh aad iyo aad u wanaagsan muujinaysa dadka Soomaaliyeed markay wada fadhiistaan inay mashaakilkooda xalli karaan. waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka muhiimka oo ah inaan dhidibada u aasno nidaam dimuqraadi ah xur ah xalaal ah dadka Soomaaliyeed ay ku wada jiri karaan dawladnimadu ay ku hore ugu soo karto oo ah waxa lagu heshiiyay inaan la garab marin. marka waxaan rajaynayaa wixii la soo maray dhammaantooda inay noo noqdaan maxaan ku yiraahdaa waxaan wax ku qaadanno oo cid danbo mas'uul ama cid danbo caadi aysan garab marin heshiiska la gaaray. dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada waxaan rajaynaynaa inay fuliyaan wixii ay ku heshiiyeen una fuliyaan sida ugu wanaagsan oo keeni karta kalsooni dadka Soomaaliyeed iyo dadka taageera Soomaalida intaba. intaas markaan ka gudbo dhammaanteen waa mas'uuliyadna saaran qarankaanu inuu u socdo horena ugu ma soco karo haddii doorashadiisa ay mugdi galo. marka waxa ugu muhiimsan inay noqoto doorasho xor oo xalaal ah daah furan dadka Soomaaliyeedna ay ku qanci karaan inay noqoto. intaas markii aan ka gudbo heshiiska la gaaray mararka qaar waa la xantaa waxa la yiraahdaa heshiis gaariddu waa idin fududahay laakiin fulintu waa idinku adag tahay. waxaan rajaynayaa inaan ka soo gudubno marxaladaas jijiib fara badan kadib maanta aan u diyaarsanahay inaan fulino hareeraha ka wada istaagno doorashada inay dhacdo. deegaanada Soomaalida oo kala duwan oo doorashooyinku ay ka dhacayso waxaan rabnaa inaan ka codsanno inay soo doortaan dad matali kara dawladnimada macna u sameynaya qaran dhisidda fahamsan inay soo xulaan insha Allah tabaaraka wa tacaala. hawsha noo taala aad ay u weyn tahay laakiin munaasabadan waxaan u maleynaa inay munaasab tahay in la sheego horena looga dhawaajiyay waxa la isku hayay siyaasaday ahaayeen colaad gaar ah oo shakhsiya ma jirin colaad qabiil ma jirin colaad deegaan ma jirin aragti siyaasadeed la isku hayay maadaama la soo dhaweeyay hadda in la iswada cafiyo caloosha la wada furo doorashada iyadoo dhinacyada aan la fiirinayn la wada galo insha Allah tabaaraka wa tacaala. anoo magaca murashaxiinta ku hadlayo marka anaga dhinaceena waxaan soo jeedinaynaa cafiyo musaamax wixii aan sheegaynay ma santiin aragti siyaasadeed ay ahaayeen wax kale ma ahayn. intaas markaan ka gudbo halka qodob ugu dambeeya shacabka Soomaaliyeed inaan ka raali geliyo isjiidka iyo jahawareerkii soo maray meesha hadda u legdan ka jiro siyaasadu ka jirto sidii wax la filayo ma noqon karaan laakiin waxa Ilaahay mahadiisa
in la heshiiyey waa jecleen heshiiska inuu soo horu maro laakiin haddana waxaan leenahay in la heshiiyaa muhiim ah marka waa idinka raali gelinaa adinkana waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ربنا نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaan rabaa marka hore inaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka labada aqal saaxiibaday ra'iisul wasaaraha iyo midowga golaha midnimada qaranka midowga musharaxiinta beesha caalamka iyo qof walba بروتوكولك halkan ku jooga inaan ku salaamo salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ficlan waxaan u daynay in markii hore aan isku ogeyn in hal qof noo hadlo sababtoo dadka waqtiga aad u dheeraa laakiin waxay ka fursan weynay in niyad wadaag la muujiyo qof waliba hadla la yidhaahdo waxaa hubaala dowladnimada Soomaaliya waa mid nugul marxalado adag iyo caqabado badan soo martay u baahan mar walba in loo turo haddii aynaan gacmaha isqabsanin oo aynaan fiirinin dowladnimada aan doonayno iyo noocay u soconayso oo nooca baarlamo doorashadu ay tahay midda beyska u ah ilaalinta dowladnimada Soomaaliya waxaan la kulmaynaa caqabado badan iyo dhibaato arrimaha qaarkood hadday dhacaanna waxaa adkaanaysa in xal laga gaadho sidaa daraaddeed waxaan aada u soo dhoweynayaa ra'iisul wasaaraha iyo golahan wadatashiga qaranka maalmahan doodii u socotay oo beyskeedu uu ahaa waddankan badbaadadiisu maxay ku jirtaa waxay ku jirtaa doorasho in la aado sida ugu dhaqsaha badan doorasho ku dhacdo kalsoonida dadka la soo celiyo taasina ay saldhig u noqoto inaanay dadku qaadanin damaca dhibaataa dhacaysa iyo maxaa dhacaya see wax u dhacaya waxaan ka cudur daaraynaa inayna mar dambe inugu soo noqonin khalkhalkii amni darro ee dhacay anoo u mahad celinaya laamaha amniga iyo ciidamada qalabkiisa guud ahaan inay aada isu xakameeyeen ilaaliyeenna waddanku inuuna gelin xaalad adag taas macnaheedu wuxuu noqonayaa waxa aan ka fakeraynay waa la isqaban siyaasad baa lagu jiraa wax badan baa la iskaga hor imanaya laakiin beysku inuu yahay waddankan inaan garanayno waddanka aan ku noolahay midka uu yahay waxaan ka mid ahaa lifaaqa aan raacinay hadda heshiiskan oo saldhiggiisu uu ahaa si aan la isu qaqabsanin dowladda dambe ee doorashada kadib imanaysaay khaaridatu dariiqii ay mari lahayd ama road mapkii ay qaadan lahayd in isagana lagu talagalo si loo qaado tallaabooyin oon maalin walba la isu weydiinin xaggeen wax ka qabanaa iyo xaggeen qaadnaa waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa shacabka gobolka banaadir iyo caasimadda oo had iyo jeer deganaansho iyo tanaasul badan muujinaya inay u dulqaataan wax kasta oo caqabada oo iman karaya dadkuna erayada qaarkood oo inta badan dadku isticmaalaan oo taariikhda iyo sidan iyo waxbaa la soo maray odhanaya intii laga gudbo maanta iyo mar walba aynu soo qaadanno dowladnimadeenna meeshaan aadayno seen hore ugu soconnaa intaa ay ku dhammaato iima muuqato dan badan oo siyaasad loo kala qaadqaadi karayo sababtoo waxaan soo marrayna waa wada garanaynaa waddankeennu midkuu yahayna waan garanaynaa waxaan ka codsanayaa oon uga mahad celinayaa mar labaad beesha caalamkana inay si buuxda ugu garab istaagaan doorashadaas siday uga dhici lahayd si nabada dhaqaalaheeda loo heli lahaa waddankuna doorashadu xal bay u tahay aad baad u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu maanta waa maalin kale oo weyn oo taariikhda soomaaliyada cusub ee dimuqraadiga ah meel weyn ka geli doonta haddii aan la yidhaah maanta waa maalin ay soo dhammaadeen muddo dheer oo cabsi badan ay socotay oo la cabsanayey xaggee loo socdaa iyo xaggee laga socdaa aan la kala garanaynin mudanayaal iyo marwooyin haddii aan wax yar dib u milicsanno xaaladda aan ka soo badbaadnay ee dalkeenna iyo muhiimadda ay leedahay munaasabadda maanta dalkani mushkiladdiisu kuma koobnayn oo keliya hay-adihii federaaliga ahaa oo mandatekeedu dhammaaday laakiin waxaa ula jirtay kala qaybsanaan hay-adaha iyagoo mandatekoodu dhammaaday ay kala qaybsamayn sida baarlamaanka dowladaha nidaamka federaalka ee dalka oo lafsadiisa kala qaybsamay iyo ugu dambayntii ciidamada qalabka sida
mushkiladahaasoo dhan marka xaalad waxay keentay dalka in aanu ku sii sugnaa karin meeshii muddooyinkan dambe uu ku sugnaa oo loo baahan yahay in hore loo socdo hore loo dhaqaajiyo si ay u xallismaan mashaakilaadkaasoo dhan loona helo waxa looga gudbayo oo mar walba ah heshiis siyaasadeed oo wada ogol ah oo dadka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo mustawa kastoo ay lihiinba ay raalli ka ahaayeen waxaan rabaa inaan u mahad celiyo intii dadaalkaas ka soo qayb gashay oo dhan muxuu ahaay madaxweynaha uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha madaxweynayaasha dawlad goboleedyada mas'uuliyiinta golaha midowga murashaxiinta oo intaa ayaguna cod dheer ku kabaya mar walba waxa ay u baahan tahay Soomaaliyada cusub ee dimuqraadiga ah waxaan goobjoog ka soo ahayn waayihii dambe wixii dhacayo dhan heshiis kasta inkasta oo aan inaan ka qayb galno aan jeclayn haddana heshiis kasta oo la gaaro oo ku saabsan doorashooyinka midowga murashaxiintu waxay u taagnaayeen taageeradiisa maalin walba warqad ay soo saarayeen ujeeddaduna ma ayan ahayn inay heshiisyadaasi ama qayb ka ahaayeen ama qodobada ku yiil in badan oo ka mid ah xataa ay raalli ka ahayn ama ku faraxsanaayeen laakiin dalka inuu hor u socdo oo ay aaminsanaayeen berri inay maanta ka sii fiicnaan doonto oo la gaari doono berri qurux badan oo maanta ka fiican dhammaan muxuu ahay dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno maanta meesha la jooga intaas mabaadidaas iyo taageeradeenna iyo xuduurkeenna joogitaankeenna midowga murashaxiintu wuxuu ku salaysan yahay taageeradaas soo jireenka ahayd ee weligeedba aan la garab taagnin isku dayadii hore ee la soo sameeyey tanna aan la garab taagnin kasokow inaan cabbirno ra'yigeenna iyo wixii saxda nala ahaa ee Soomaalida casriga ah ee dimuqraadiga ah ay u baahneed meesha aan taagannahay maanta micnaheeda ma aha wax kasta inay dhammaadeen laakiin waxaan leeyahay maanta meesha aan taagannahay micnaheedu wuxuu yahay wax kasta waa bilow albaabkii ayaa la furay waddadii la mari lahaa ayaa la feeday in la qaado waddadii oo la mara kama dhib yara albaabka maanta la furay sidii loo furi lahaa waddadii dheereed iyo dadaalkii loo soo maray walaalayaal waxaa iga xasuusin ah in aan qofna laga tegin hayaankaas waddadaas la maraayo qof kasta waa noo muhiim qofna quursi ma galo saddexdaas shay inaan qofna laga tegin qof walbana uu muhiim noo yahay qof liita iyo qof la quursanayaan aanu jirin waa midda keliya ee meel sanna geynayso waayihii la soo dhaafayna in badanoo ka mida waa ku caanamaanlay waxa keliya ee aan u baahannahay waxay tahay isqadarin isuturid iyo dulqaad loo sameeyo kuweenna gaabinaya waana ku soo caanamaanlay inaan sidaa yeelno muddooyinkii la soo dhaafay ee dhan oo aan ku soo jirnay safarka ugu dambayntii waxaan ku soo gunaanadayaa hadaljeedintaytan kooban dhaxalka keliya ee aan uga tegi karno jiilasha soo socda ee Soomaaliyada dimuqraadiga ah ma aha ama inuusan ahayn si haysiga kursiga ama talada markaas aan joogna mustawa kastoo aan leenahay ma aha midda ugu sarraysa keliya laakiin mid kasta mas'uuliyadda la isu dhiibo ee xilliyaysan inaan sii haysanno ma aha muhiimadda ugu weyn waxa ugu weyn ee ay tahay inaan muxuu ahay sooyaalka siyaasad wanaagsan inaan dalka jiilasha soo socda inaan uga tagno waa sooyaalka siyaasad wanaagsan oo loo aayo inaan u abuurno u dhisno aasaaskeedii u taagno ugana tagno waxaa tusaale aad iyo aad muhiim u ah oo aan xusuusanno mar walba dibna u himanna ah tii uu noogaga tegey allah u naxariistee madaxweynihii ugu horreeyey Soomaaliya oo xor ah mudane aadan cabdulle cismaan waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado maanta guul iyo farxad iyo ku naalooshaan joognaa waa il oo kale guusheenna maanta ishuna waxay u baahan tahay in saxarka si aad oo aada looga ilaaliyo guusha maanta aan joogno waxaa suurtagal ah hal kelmad oo qof mas'uula uu yidhi inay wax badan ka bi'do waxaana suurtagal ah hal kelmad oo qof kaloo mas'uula yidhi inay gaarsiiso meesha aan la jecelnahay ama aan la hiigsanayno aad iyo aad ayaan u rajo fiicannahay
aad iyo aad ayaa kalsoonida maanta taaganna ee u dhan tahay wixii la soo maray waaye aragnimo iyo khibrad noogu filan waxaan u soconno ayaa nooga muhiimsan ayadana kuma rajo xumin waa ku rajo weynaa aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية رئيس الوزراء دولة فدرالك dhammaan madaxda golaha wada tashiga qaranka ee dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta golayaasha dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah oo ugu horeeyaan guddoonka labada aqal dhammaan musharaxiinta xilka madaxweynenimada iyo mas'uuliyiinta kale ee kala duwan ee golaha fadhida wakiilada beesha caalamka madaxda iyo mas'uuliyiinta ururada bulshada rayidka ah saraakiisha iyo ciidamada amniga iyo saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan uga mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya dowrkiisa hogaamineed iyo fududeynta qabsoomidda shirka golaha wada tashiga qaranka iyo dowrkii ay madaxweynayaasha kale ee dawladaha xubnaha ka ah ka qaateen wada hadallada golaha wada tashiga qaranka waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay diyaarinta munaasabadan oo lagu soo xirayo shirkii golaha wada tashiga qaranka ee maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho waxaan kaloo bogaadinayaa taageerada beesha caalamka oo runtii ahaa dadaal badan geliyay sidii aan heshiis uga gaari lahayn qabsoomidda doorashada dalka mudanayaal iyo marwooyin sharaf weyn ayay ii tahay in aan halkan maanta idin kula qaybsado farxadda dhamaystirka wada hadalladii u dhaxeeyay madaxda golaha wada tashiga qaranka ee muddadan ka socday magaalada Muqdisho ee aan uga hadlaynay xallinta caqabadihii hareeyay fulinta heshiiskii aan 17 Sebtembar 2020 ku saxiixnay magaalada Muqdisho mudanayaal iyo marwooyin warmudkiyeedka halka laga akhriyay oo ah qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaranka wuxuu ku yimid isu tanaasul isqancin iyo rogrogis sidii xal wada ogol ah looga gaari lahaa caqabadihii ka jiray helgelinta doorashada dalka iyadoo la tixgelinaya ku dhaqanka heshiiskii 17 Sebtembar 2020 sida aad wada ogtihiin waxa qarka u fulnay in dalku galo burbur dawladnimo xasiloon darro siyaasadeed iyo khalkhal amni oo dhammaantood horseedi kartay khatar in dalku ku laabto wadadii laga soo kabsanayay ee dagaalka sokeeyay taasoo ilaahay mahadiis aan dhihi karno in lagaga badbaaday niyad sami iyo juhdi dheer oo guushiisa la gaaray aan halkan maanta u wada joogno mudanayaal iyo marwooyin dawlad dhiska dalkeennu wuxuu weli ku jiraa xaalad nugul ah maadaama uu dalku weli ka soo kabanayo burbur dawladnimo mid dhaqaale iyo mid bulsho haddaba dhammaan gaar ahaan mas'uuliyiinta dawladda federaalka loo doorto iyo dawladaha xubnaha ka ah waxaa waajib inagu ah in aan mas'uuliyadda alle hortiisa ah iska saarno sidii looga miro dhalin lahaa geedi socodka dawlad dhiska dalka iyadoo la ilaalinayo qawaaniinta iyo mabaadi'da lagu heshiiyey ee saldhigga u ah tubta dawlad dhiska iyo nidaamka federaaleynta dastuurka ku meel gaarku ugu horeeyo mudanayaal marwooyin dalka Soomaaliya waxay baahi weyn u qabtaa hay'ado dawladeed oo ilaaliya qiyamka dadka iyo dalka Soomaaliyeed fuliyana danahooda masiiriga ah iyagoo loo marayo hanaan dimuqraadi ah ee heshiis lagu yahay sidaa daraadeed dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay aad uga fiirsadaan marxaladaha kala guurka ee dalku marayo si wadar ogolna ee uga gudbaan caqabadaha ka imaan kara waxaan kaloo ii muuqata inay si midaysan uga wada shaqeeyaan
marxaladda ka dambaysa doorashada oo ah marxalad xasaasi ah oo habboonayn in dib loogu noqdo khaladaad badan oo marar kala duwan dhacay. qorshayaasha mudnaanta qaran leh oo ay tahay in dhammaystirkooda la iskala xisaabtamo waxaa ka mid ah dhammaystirka dastuurka, amniga qaranka, iyo in la isla kaashado sidii cadowga al-shabaab iyo daacish dalka loogu xarayn lahaa, in dib u heshiisiin qaran la sameeyo lagana midho dhaliyo wadahadallada Somalilan, in dib u dhis buuxa lagu sameeyo dhaqaalaha dalka si kor loogu qaado shaqo abuurka dhallinyaradeenna, iyo in la hirgeliyo doorasho dimuqraadi ah oo qof kasta codkiisa ku dooran karo madaxdiisa mustaqbalka. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan halkan idinku xaqiijinayaa sida ay nooga go'an tahay qabsoomidda doorasho dalka oo ku dhacda si nabad ah, wada ogol ah, annagoo ka duulayna xasilinta siyaasadeed iyo amni ee dalka. sidaa daraaddeed waxaan si joogto ah uga wada shaqaynaynaa hubinta fulinta dhammaan heshiisyada lagu hergelinayo doorasho ku dhacda si nabad ah. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.